ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. caasimadan ma sii joogi karo qof isku dayaya inuu burcadnimo iyo 2019 isku dayo magaalada. waa dhammaatay wakhtigii fowdada, wakhtigii mooryaannimada, wakhtigii maleeshiyaadka. waxaa la joogaa wakhtigii muwaadin walbow waddankaagii maxaad u taraysaa, caasimadaada maxaa u taraysaa, noqo muwaadin. inta qoryaha haysta iyo bistoolooyinkan waxaan leenahay haddaba iska tuura oo ummaddiinni ka mid noqda, waxbarta, waddankiina u adeega. waddankan wuxuu gaaraa mar lala xisaabtamo qof kasta oo dembi ka gal, nin kastoo hogaamiye kooxeed ahaa, nin kastoo dad dilay, nin kastoo dembi galay, nin kastoo hanti boobay. maraan fogeen maxkamaddan waa la soo saaraa, muxuu ahaa ummaddana way la xisaabtami doontaa. arrintaas iyadaa marka annaga dikreetaan soo saarnay goobtaas in la banneeyo. dikreetadana weli waa sideedii. waxaa jira dad dhahayo dukumentigaan u haysanaa, waxaan ka codsannay qaarkood la fariisannay inay noo yimaadaan wixii dukumenti ay haystaan ay keenaan. ma dukumentigoodii ma si qaladaa lagu bixiyey, ma saxuu ahaa, muxuu aha ma dhul kale iyo wax kale loo raadinaa, maxaa laga yeelaa? waxaasoo dhan annaga diyaarana. laakiin cid ka soo horjeesan karto go-aanka aan bixinay ma jirto, cid is-hortaagi karto maleeshiyaad keensan karto ma jirto. dowladnimo inay socotaa la rabaa. waa ku dhimanaynaa in dowladnimadaas ay hirgashana waa iga go-an tahay. waxaa farxada in maanta cayaarta halkan aan qabanayno ay tahay cayaaro ka duwan cayaarihii hore. dhalinyaro runtii aragla haddana u soo istaagay inay horumarka isboortiga dalka ka qayb qaataan, oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba aan tusayno, awoodsiinayno, dhiirigelinayno, bulshadana aan ku wacyigelinayno muhiimadda ay leedahay dadka baahiyaha gaarka qabo inaan garab istaagno. waxaan rabaa inaan fursaddan uga mahadceliyo Astaan TV oo mar walba diyaar u ah horumarka isboortiga iyo dhiirigelinta dhalinyarada. sidoo kale waxaan si gaara maanta rabaa inaan uga mahadceliyo maamulka iskuulka Al-Nuur oo runtii barbaariya, waxbara, haga, toosiya dhalinyarada araggala ee Soomaaliyeed. haddii iskuulkan uusan jiri lahayn dhalinyaro fara badan fursaddaas kama faa'iidaysateen. annaga maamulka gobolka Banaadir haddii aan nahayna waxaa naga go-an inaan taageerno dadka baahiyaha gaarka qaba
dadka u istaagay inay dadka baahiyaha gaarka qaba awood siiyaan ama taageeraan annagana maamulkii gobolka dhannahay waxaa naga go'an inaan dadkaas garab galno intaas ka sokow waxaan rabnaa waqti aan u socdo muhiimadda isboortiga iyo dhallinyarada halkan kuma soo koobi karno waxaan u taagannahayna waxay tahay horumarinta dhallinyarada isboortiga barnaamijkaana barnaamij gaara bacdamaa uu yahay waxaan rabnaa in bulshada soomaaliyeed ay aragto muhiimadda dadka baahiyaha gaarka qaba ay noo leedahay annaga maamulka gobolkana waxaan furnay xafiis gaara oo dadkaas baahiyaha gaarka qaba oo runtii agaasimana ka ah basiira oo gabar iyadana aragga la ah runtiina u taagan inay dadka baahiyaha gaarka qaba maalin walba dhiirigeliso sidoo kale waxaan shaqaalaha ka mida dad ayagana baahiyaha gaarka qaba waxaan rabnaa dhammaan bulshada ganacsatada iyo warbaahintaba in loo istaago dadkaas baahiyaha gaarka qaba la dhiirigeliyo si ay bulshada uga mid noqdaan waddan walbana horumarkiisu wuxuu ku xihan yahay hadba sida dadka baahiyaha gaarka qaba ee waddankaas ay bulshadaas iyadaa u qadariso u tixgeliso una dhiirigeliso sidaas daraaddeed waxaan leenahay cayaarihii waa noo furan yihiin waxaan aaminsanahay in gabdhuhu ay yihiin hoggaamiyaal dhab ah hoggaamiyaal ilaahay u barbaariyey si rabbaani ahna runtii ay mas-uuliyad gaara iska saaraan hadba hawsha loo dhiibo mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen waa u jeedaa halkan waa tartankii cayaaraha kubadda gacanta ee degmooyinka oo aad galabta cayaar qurux badan ka daawanaysay degmooyinka warta nabadda iyo cabdicasiis waad u jeeddaa dhallinyaradii waxay u jeesteen horumarka iyo nabadda dalka waxaana muuqata in soomaaliya ay horumar gaartay horumarka caasimadda iyo horumarka dalkana ra'iisul wasaare ku-xigeen waxa mas-uul ka ah waa dhallinyaradana habka keliya ugu habboon waa isboortiga iyo isdhexgalka bulshada maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada iyo cayaarahana mar walba waxay u taagan yihiin sidii dhallinyarada loo siin lahaa fursad oo ay ku muujiyaan horumarka dalka ka jira gaar ahaan horumarka caasimadda cayaarahan sababaha loo qabtay waxaa kaloo ka mid ah in la kordhiyo nabadda iyo horumarka ummadduna nabad iyo nolol hadday hesho waad arkaysaa siday ugu riyaaqayaan u farxayaan maantana waxaan haysannaa madax dawladda oo runtii nabad iyo nolol hirgelisay ummaddii u istaagtay soomaaliyana cagaheeda ku istaag sidii horena ku soo celisay maqaamkii iyo sharafkii ay hellaahan jirtayna uu soo noqday waxaanu ku bilaabaynaa duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa maanta u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay xarunta gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow waxaa lagu daweynayay isbital ku yaala magaalada dooxa ee xarunta wadanka qatar halkaasi oo uu maanta uu ku geeriyooday mawlid xaaji cabdi ayaa haddaba waxa uu eegayaa warbixin ku saabsan taariikh nololeedkii duqa muqdisho oo muddo dheer ka dhex muuqday siyaasadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waa maalintiisii ugu dambaysay hawl maalmeedkiisa xafiis waxa uu soo dhowaynayaa ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan saacada kadib wuxuu ku dhaawacmay qarax ka dhacay isla xafiiska gudihiisa dhaawacaas
oo uu maanta u geeriyooday injineer yariisow wuxuu bishii january 2018 uu noqday duq iyo guddoomiye magaaladii uu ku dhashay ee muqdisho waxaana ku bartay oo uu kaga soo baxay jaamacad 1986 laakiin burburkii dawladdii dhexe ee soomaaliya wuxuu u soo wareegay waddanka UK oo uu yimid 1993 halkaas oo uu ku noolaa muddo waxbarashadiisana ka sii watay xilkiisii ugu dambeeyey ee uu hayay ka hor geeridiisa ma aanu ahayn kiisii ugu horreeyey waxay dabaysha siyaasaddu ku bedday sannadkii 2008 isagoo ka mid ahaa ururkii dib u xoraynta Soomaaliya ee fadhigiisu ahaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea intii ururkaasi aanu heshiiska la gelin dawladdii xilligaasi jirtay muddadaasi wixii ka dambeeyeyna dalka ayuu ku sugnaa oo wuxuu aad ugu dhowaa ama xilal ka soo qabtay dawladihii dalka isaga dambeeyey oo uu ka soo noqday wasiir warfaafin ganacsi afayeen xukuumadeed iyo la taliye ra'iisul wasaare dalka yaqaan Cabdiraxmaan waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad u degan oo saaxiiba kasbada aadna u afgaaban isla markaasna aad u necba inuu abuurto cadow allaha u raxmaday Cabdiraxmaan wuxuu ifka uga tagay xaas iyo 7 carruur ah dowladda Soomaaliya ayaa haddaba waxa ay sheegtay in 3 maalmood oo baroordiiqa loo samaynayo calankana hoos loo dhigayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa goor dhaweyd ka tacsiyay geerida Yariisow waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho tacsidaas oo la xiriirta Allah u naxariistay geeridii ku timid injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow oo ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaan maanta magacawnay guddi ka shaqeeya Allah u naxariistay aaska gudoomiyihii gobolka Banaadir guddigaas oo hogaamin doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xubno kala duwan waxay qaban doonaan aas qaran oo loo soo agaasimo sida uu heer sarreeyay hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay samri iimaan hanaga wada siiyo waddanka wuxuu gaaraa mar la xisaabtamo qof kasta oo dambi ka gal nin kasta oo hogaamiye kooxeed aha nin kasta oo dad dilay nin kasta oo dambi galay nin kasta oo hanti boobay maraan fogeen maxkamaddan waa la soo saaraa muxuu ahaa ummadana way la xisaabtami doontaa arrintaas iyada marka annaga dekreetan soo saarnay goobtaas in la baneeyo dekreetadana weli waa sideedii waxaa jira dad dhahayo dokumenti aan u haysanaa waxaan ka codsanay qaarkood la fariisanay inay noo yimaadaan wixii dokumenti ay haystaan ay keenaan ma dokumentigoodii ma si qalada lagu bixiyey ma sax u ahaa ma muxuu ahaa ma dhul kale iyo wax kale loo raadinaa maxaa laga yeelaa waxaasoo dhan anaga diyaarana laakiin cid ka soo horjeesan karto go'aanka aan bixinay ma jirto cid is hortaagi karto maleeshiyaad keensan karto ma jirto dawladnimo inay socotaa la rabaa waa ku dhimanaynaa in dawladnimadaas ay hirgashana waa iyaga go'aan tahanay caasimadan ma sii joogi karo qof isku dayaya inuu burcadnimo iyo 2019 isku dayo magaaladan waa dhammaatay waqtigii fowdada waqtigii mooryaannimada waqtigii maleeshiyaadka waxaa la joogaa waqtigii muwaadin walbow waddankaaga maxaad u taraysaa caasimadaada maxaa u taraysaa noqo muwaadin inta qoryaha haysta iyo bistoolooyinkan waxaan leenahay haddaba iska tuura oo ummaddiina ka mid noqda wax barta waddankiina u adeega qof kastoo ood wax u qabtayna cafi aan iswada cafinno anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kastoo dembigii galay waa cafiyey waxaan rajaynaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan iswada cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم